maanta kuleel badan baan nahay maanta wadarku aad buu u kulliyahay yaa wallaahi ilaahay baad muddo caridiisiiba inay durba banaanka usoo baxday waxyaalaha maanta dhacaya dartood yaa wallaahi aad baan uga xunahay aad baan uga qayriyeysanahay waxa maanta dhacay waxaan rabaa arrinta yare maanta muqdisho ka dhacday iyo galmudug inaan ka hadlo oon ka hadlo walaalkeen cabdikariin sheekh muuse arrintiisii iyo meeshay ka bilaabatay sidii ku dambeysay baan runtii rabaa inaan idinla sheergareeyo marka waan soo dhaweynayaa walaalahay soo dhawaada cali siyaad soo dhawo walaalaad baan kuu salaamayaa cabaas geedow dhammaantiin waan salaamayaa soo dhawaada raalli ahaada telefoonada isoo gelgelaya maanta walaalayaalow haddaan kuti dheeraan maayo kolley wax yar baan rabaa halkan inaan ka iraahdo maanta waxaa arrin aad u xun ayaa runtii dhacday oo dadka badan aad u qeyro gelisay marka arrinta waxaan ka hadlayaa walaalkay cabdikariin marka waxaa dhacay cabdikariin inuu galmudug joogay faamiligiisa iyo dadkiisa ayuu la joogay cabdikariin waa wiil muwaadina waa wiil nacab dhibaatada dadka soomaalida lagu hayo waa wiil ka dhiidhiya runtii in dadkayga soomaali maxamed meeshay adduunka joogaanba in la dhibaateeyo duurka ugu jiray u rafaaday noloshiisa u gafaabgareeyay inuuna qaadanin dee meeshana qof walba ha ogaado asagaa xorriyad u leh qofkii ka dhidhiyaya dhibaatada iyo qofkii ku raacaya go-aanka isaga iska leh laakiin in layskuma nici karo layskumana jeclaan karo qof walba dooqaysa isaga iska leh marka wiilkan anisaasuu ahaa galmudug buu hotel buu ka deganaa galmudug markii ugu horreysuu tegay ma ahayn dhowr weliguu tegi jiray rag baa u tego waxay yidhahdeen nin al-shabaabaa meeshan jooga oon ka shakinay ninka in lasoo saara rabnaa wiilkii waa lasoo saaray suu uga badbaado wuxuu yahay runta ah buu u sheegay ninkan inuu nin Itoobiya u dhashay uu yahay nimanka mucaaradkii halkaa ku xirxiran ee halkaa jihaadanka ugu jira inay xornimadooda helaan inuu yahay marka tii la ogaadayna waxay gaadhay heer meelaha dariskoo dhan raggii galmudug inta loo yimaado la yiraahdo war ninka lacag baan siisanaynaaye nooga leexda marka ay nimanka galmudugna kariirad baan ku siinayaa waan u tahdiyadaynayaa waan u mahadcelinayaa wallaahi waa niman dhab ah oo Soomaaliyeed waa niman raga oo wallaahi shariif iyo sheekhoodaba isku tagay waa magaalada kaliya shacabkoodii iyo dadkoodii intay isku tageen ay kulligood go'aan ku gaareen oo yiraahdeen war annagoo Soomaali ah nin Soomaaliyeed oo dhiigayigi leh $100 milyan haddaadna siisaanna ma siisanayno oo lacag loogu ballan qaaday waad ogtahay you can imagine dad maanta Soomaaliya jooga oo gaajaysan oo rafaadsan oo la leeyahay intaasoo lacagaa layna siinayaa haddaad ninka noo dhiibtaan can you imagine damiirkoodii dhiigoodii uu siin waayey inay lacag ku doorsadaan ninkaa Soomaaliyeed waxay yiraahdeen anagu gaajada ku dhiman ama sidaan ku joogno ku jirna ay ka dooranay inaan nin Soomaaliyeed oo walaalkeena oo dhiigeenna ah oo martino ah inaan axmaaro u dhiibno raggaasi dagaal weyn bay qaadeen ninkii way diideen inay dhiibaan way ku gacan adeegeen nimanka soo istaagay ee ku soo gacan adeegay ee nimanka beenta u sheegay galmudug ee yiri war nimankan keena ninkan annaga mas'uulkiisa qaadayna ilaalinayna xornimo bahashiisa nabadgelyadiisa annaga weeyaan waa khayre madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliya iyo Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya labadooduba nimanka way la hadleen waxayna yiraahdeen reer galmudugow annaga mas'uul qaadayna annaga keenayna ee keena nimanka sheekhyada masaakiinta dadkii way aamineen ilaa waa madaxdoodii waa dadkoodii marna isma laha nimankani idinkiiba idin sheegayaan beeno ninkan gacanta idinku jiray gacantiina ka saarayaan gaalo u dhiibayaan ama axmaaro u dhiibayaan marnaba isma lahayn nimankii way hay bay yiraahdeen
way ku gacan adeegeen way soo dardaarmeen wax walbay sameeyeen inaan ninkaa gacantooda ka bixin ninkii sidii wax xamar ku yimid farmaajo iyo khayre ayuu gacantooda soo galay oo ballan qaaday inay ninkaas badbaadadiisa ay ilaaliyaan saad u ogtihiin baa ninka cabdikariin ahaa hal habeen buu xamar joogay isla habeennimadii saqdi dhexe markay ahayd nimankii lacag ayay ku siisteen wiilkii cabdikariin ahaa cabdikariin xamar baa laga qaaday waxaa la geeyey baydhabo baabuur xamar ilaa halkaa baydhaba lagaga qaaday waxaa la geeyey baydhaba diyaarad laga saaray Addis Ababa saaka 6 in the morning markay ahayd ayuu ka degay wallahi haddaba anu waxaan la yaabanahay nimankan waaweyn ee le madax baan idin nahay ee ummadoo dhan halka ay wax ka sugayso ma kula tahay inay wax ka fiican ama ka wanaag badan inoo keenayaan war maanta markaa nin walaalkaayo Soomaaliyeed farxiisi maanta waa ku salaamay aad siisato lacag macid kala daynaysaa midda kale waxaan madaxweyne ka soo qaylino iyo waxaan madaxweyne kale ka soo hadalnaba waxaad ogaataan wuxuu ninkan madaxweynaha farmaajo iyo khayre waa madaxweynihii ugu horeeyay farmaajo ee xamar nin Soomaaliya Itoobiya gacanta u galiya never ma dhicin madaxweyne walba ka qaylino iyo madaxweyne kastoo niraahno madaxweynahan halkaas ku dhiban yahay ku khariban yahay iyo sidan muu sameeynin iyo lacag buu wadankii siistay wallahi marnaba kama suuroobeenin inay maanta nin Soomaaliya xamaar u dhiibaan never happened horeyna uma dhicin I don't believe gadaalna inay u dhacayso laakiin farmaajo iyo ninkii khayro wallahi waad saabaysan you disappointed the Somali oo dhan ma aydan eegin xataa magacii Soomaaliyeed warbari xataa consequenceskeeda iyo waxa dadkii kala kulmaysan ee shacabkii meedan eegin Soomaali maalin ay ka midaysan tahay ma jirto Soomaali waa iska wada hadlaynaa oo waxaan leenahay waxaan nahay reer hebel iyo reer hebel de markay gaado dhiida markay gaado Soomaali waa Soomaali waa iska leh Soomaalina waa hal lagu seexdo hal lagu soo tooso marka waxaan ku sheegayaa farmaajo 3 sano idin hadhaadiye khayre miyaydan ku fikiraynin war shalayto ku idin dam iyo babta lahaa waa kuwaane oo idin ordayo oo idin dooranayee reer Galmudug bay ugu badnaayeen dadkii ku soo saartay oo ku aaminee maantana ayagiiba jubkii ugu weynaa ku rideene miyaydan ka fikiraynin future-kiina iyo tomorrow markaad soo baxay aad soo sharaxdaan yaa idin dooranaya illa waa isceebayseene marka waxaan anigu la yaabanay oo always isleeyahay war heeda yeen talow aaminaa anigu hadda I lose wallahi trust anigu ragga waaweyn siyaasiyiinta ku jira ma garanayo wixii hadda kadib la aamini doono iyo qofkii qof walba oo loo riyaaqo qof walba oo la yiraahdo wallahi ninkana Soomaalinimadii ku weyn tahay ninkana kana waa interest marka maanta waxa ayaan darro ah oo guul darro ah oo maanta Soomaali u soo hooyatay inay madaxdeedii nin Soomaaliyeed oo muwaadin ah oo dhibaato u geysanin oo walaalkood ah oo ayaga u soo doontay nabadgeliyo oo dalka halkaas ka soo cararay oo rag waaweyn oo sharaf iyo qiimo loo reer mudug ah galmudug ah ay gacanta ku hayeen intay u dayn lahaayeen ay oran lahaayeen war nimankaas gacanta ku haya reer galmudug annagu safety-giisa hadaan awoodi karin nimankaas aan u dayno oo nimankaas iyaga Itoobiya la xisaabtamaya oo garanaya daaya ayay yiraahdeen war annaga noo soo gudbiya si ay magac ugu yeeshaan because waxay diidanayeen reer galmudug inta dhinacyada laga soo maro ee khasbaan oo ninka gudbiyaan inay magac ku yeeshaan oo lacag ku qaataan mana dhacayso weligeed reer galmudug waa rag sharaf leh waa rag qiimo leh wallahi waa rag Soomaali ah Soomaali dhab ah sababtoo ah iyagoo maanta Soomaaliya joogo cid lacag uga baahan tahay jirin oo qof Soomaaliyeed oo maanta lacag uga baahan iyo dhaqaale maanta abaaraha Soomaaliya taagan uusan jirin ayay diideen inay dollar ku qaataan taa ku seexda hadaba farmaajo khayroon idinkoo lacagtii adduunka oo dhan haysta oo shalay Sacuudi Arabiya iyo meesha lisla haysteen lacagihii oo dhan ka gurtay oo wadanka lacagtii lagu dhisi lahaa oo dhan gacantiina ku jirto oo multi-millionaires ayaad maanta dollar siisan wiilka miskiinka Soomaalida ahaa raganimada ka xun ee adduunka taalaano ma garanayaba shame on you wallahi raganimo aad u xun weeyaan raganimo xumo idin soo korortayna weeyaan waana ka xumahay ma fahanteen dad badan baa waxay soo weydiinayaan nasraac madii kulli waxa salaamaya waxay soo weydiinayaan message-kaygu aad buu buuxa waxay soo weydiinayaan ma la hubaa arintan waa la hubaa 100% guarantee wax shaki galayana ma jirto wax waa la yiri iyo waa la kaniyeen tahayna ma jirto 6 in the morning Addis Ababa ninkaasi ka degay marka meel iyagu god iyagu yaqaanaan iyo meel ay dadka ku jarjaraan ayayna geysteen laakiin Ilaahay buu qabaa ninkaasi
ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay inuu cadowga kasoo furfuro uu kasoo gacan qabto ninkaasi nin maanta nin lagu khamaaro ama lacag la siisto wallahi inuusan ahayn laakiin madaxdayada aad baan uga disappoint garaysanahay Soomaaliya haddaba waxaan inoo sheegayaa Soomaaliya wallahi dad ma haysano wallahi nima siyaasiyiin ma haysano taasa inoo dhaba maalin walba ka ina qabsada ama kan ina kay wax ina hore u arkin oo surprising ah baan ku arkaynaa arrinta Soomaaliya Muqdisho waligeed kama dhicin Muqdisho wax kasta oo ka dhaca iyo dil kasta oo la isgeysto Soomaali anaga ba isdilna qarax kasta oo la isqarxiyo anagu ba isqarxina laakiin nin Soomaali oo maanta xamar jooga ama Muqdisho jooga ama Soomaali afartooda koona jooga nin ilaahay iimaanka ka qaaday mooyaane nin walaalkii $100 siisanaya ma jiro because Soomaalinimada ku weyn maantana Soomaali arrintan way ka midaysan tahay isku meelna way ka soo taagan tahay wayna ka wada xun yihiin noo maara qabiil uu yahay noo maara qof uu yahay Soomaali maanta waa saad maalin madoobay u tahay waana ka xunnahay runtii ilaa xalay ilaa shalay rag badan baa ka shaqeynaya arrintan farmaajo waa lala hadlayay si kasta loo bariyay oo liir walaalo macaan oo nimankan aad bay u raadinayaan si xunna way u galayaan ninkan walaalkiin ah ha gudbinina oo axmaaraha u dhiibina oo dadka sidan walaalo ha dhiibina way diideen afcad bay ku diideen ninkii xalay saqdi dhexe markay ahaydna waa la masaawa la geeyay baydhaba la geeyay baydhabana waa laga sii kaxeeyay marka arrintan waa arrin la hubo waa arrin aad saar u ah waa maalin madow wallaahi sababtoo aan maara wad Soomaali qolad u yahay maalin Soomaaliyeed maanta min cadow marka gacanta looga geliyo oo loo dhiibay inuu jarjaro oo sidoo rabo uu ka yeelo lacagtaas waxaan la yaabanahay meesha geynayso ilaa waa wada ognahayo in lacag la ballan qaaday everywhere ba ogeed ilaa galmudug maalintii kow sheekadu bilaabatay ayaa lacagta Etoobiyaanku ay soo sheegeen oo ilaa intaas oo lacag aan bixinayna ninka dad gacanta noo soo gelisaan oo yiraahdeen xaraan bay ka tahay shacabkoodii iyo wadaadadu inta wada istaageen yiraahdeen ma anaga nin Soomaaliyeed maanta lacag siisana maanta marka intaad Soomaaliya intaad keenteen xamar oo magaalo madaxdii Soomaaliya ceebaysaan oo magac xumo u soo jiidaan oo nin Soomaaliyeed axmaaro u dhiibtaan wallahi shame on you laakiin waxa idin sheegayaa hal mid bad ku seexanaysaan arrintan arrin la idinkaga haraya ma aha waa farmaajo iyo khayran la hadlaya arrintan arrin la idinkaga harayo ma aha waa arrin gamar gaaban la idinku fadhiyo 3 sano idin hartay hadday idin dhamaato inta wadku idin gaarsiiyaba si idinku gaarsiiyaba ogaada sharaxaad dambe iyo Soomaali iyo rajo dambe oo Soomaali aad ka haysaan ma jirto war inaadan aqli lahayn nimankii shalay axmaarada aad ka soo sii daynayseen iyo kanaad u dhiibaysaan maxay qiimo kale leeyihiin sababta shalay waxaad u soo sii daynayseen nimanka sababta axmaaradii baa dadkan baabi'isay 20-30 sano jeel ugu jireen wixii kale ay ku sameeyaan bay garan waayeen day dhisaaro inay iska sii daayaan magacbad khayr ku raadsanaysa waxa tir intaas oo nin Soomaaliya soo daay really maantana kana diibtay marka axmaarada sida rabto inay ka yeelaysaa marka wadankii Soomaaliya khatar buu ku jiraa awal gabre iyo meelo sosokan ka hadlaynay maanta sheekadu aad bay u khariban tahay wallahi waxaynu ognahay Soomaaliya Ethiopia inayna ka maqnayn waligeed buu weyna ogeyn laakiin maalinta ka dambaysa waxaynu sii arkaynaa proof maalinta ka dambaysa proof ma sii arkaynaa maalinta ka dambaysa wax ina waa la geliya ama waa la maskaxdeena ka dhigo dhaho sidee ku dhacday ayaanu arkaynaa marka waraanigu waxaan leeyahay war Soomaali Ilaahay faraja u furo Soomaali Ilaahay faraja u furo dad Soomaaliya dadkeena qurbaha jooga iyo kuwa Soomaaliya joogaba war Soomaali cidi inooma maqnaa wallahi inaan cidi inoo maqnayn Soomaalideen meel walba ordaysa isleena rag baa wadanka idin haya badayni maanta Mareykan baa degan xiriye ka wada sameysteen afarta qoor maalmood family dhan oo reer ah oo beer qodanaya ayaa la iska dilay Mareykan baa dilay cidi kama hadlin xataa nobody even say maxaa loo dilay reerkan sababtoo way baqayaan marna waxay ka baqayaan Ethiopiankii mar waxay ka baqayaan Mareykan nimankiiba raganimadii waa laga qaaday it's very sad wadan markaad leedahay inaad saa u cabsatid oo aad sida raganimo la'aan aad u noqotid wallahi it's very sad waan ka xumahay sababta dad bad haysataa Soomaalida inaga power badan ma jiro 77 oo soo dhaafnay we still have the power we still have the bahalkii awoodii we capable in dadkan oo dhan ka xorowno laakiin waxa la arkaysaan inaynu inagiiba aynaan isku haysanin oo aynaan isku meel ka soo wada jeedin wixii baa linaga faa'iideysanayaa dadkan oo kala madaxweyne loo dhiibanayaa badiba dhinac ka iibsanayaan xagana wax laga iibsanayaa xiriyaa laga sameysanayaa kaniisada wadankii laga dhisayaa you know
wallahi it's very sad ani Soomaaliya mar alla markaan aan niyada qabto oo israado wallahi wadankii hadduu rajo fiican yahay wadankii meel fiican buu ka soo baxaya waxaad arkaysaa a lot of stuff oo disappointed ka dhigaya wasleed wallahi wadankii wax rajo ma laha marka waan ka xumahay maanta inay axmaar ina haysato Soomaaliya ama ogaada ama ogaanina awal soo ogaad axmaar waxaynu ku ogeyn Ethiopia iyo meel ogaadeenay la yiraahdo oo Soomaali maxabado dhan degto hal qabiil ma dego Ethiopia qaybta ogaadeenay la yiraahdo ee xurmada dadka u raadsanayaan Soomaali maxamed qabiil kasta iskale qabiil walba dega magaca un bay oo la baxday ogaadeenaya marka dadkaasi inuu haysanay inay dadkani dhibaan iyo inay dadkani wax u geysanayaan laakiin hadda wala Somaliland ولا إلا مقدشو إلا كسمايو إلا بدلان إلا everywhere وإنها إنا هيستا whether you like it or not Ethiopia ملحة إنها وذا هيستا Ethiopia وذا فردنا Ethiopia إنها وذا قميستا هدينو كاكا عينان إنها ينشرتا هدينو سيدا كوا إلا دقينهين اللو بحيي تشيلاش مقعيدة اللي تشيلو قادين إيو تشيل هبل يلو بحيي لو بحيينا تشيل صومالي بصوص عدا والله يا تشيل صومالي أيها صوص على مردو ولا سكو قردونه ديار الله هذا هدان ديار لو إهانيننا ورصومالي ضدني ماذا إنه لنا مادنو وإنه تصنع ضد كان أحمر حنا أورا يسوي يضرب والشلي بوابي باور لهيد بينود مننا ما أنت إتوبي محي هيستا it's nothing إتوبي مالنا كل دتو أو كأيان درنتهاي أو كحنتهاي والله إني سن ما تشيرين وحين أجنه هي كلية وابي باور لهيد حيل الثلاثة واهيستي وابو صومالي سا أسوق ما يسنشري ومسكح إنك قفلنته ما أنت إنك كباور وين إتوبي وح ما هيسو it's nothing zero بيكفر ده dadka sida loo abuse gareeyo ee jeelasha loogu dilo ee loo qowraco ee loo jarjaro oo waligeed century boqolaal sano 50 sano 500 sano iyo 1000 sano ay ku soo jirtay ya ayay ma unbay ku jirtaa hadana laakiin wax inta dhaafsiisan oo dadka baabaoodii iyo xumaantii dilka ay ku sameynaysa wax inta dhaafsiisan wallahi inayna Ethiopia haynin power bayna haysanin military ku filan bayna new police ba u taliyaa Ethiopia dhan new police wad aragtaan kuwa dadka sidan u silcinaya iyo madaxweynahoodan ilaa marka ma rabo inaan ku sii dheeraado laakiin waxa idin sheegayaa Ethiopia dadka moodaya inay power leedahay iyo inay leedahay bahalkiyo ku seexda Ethiopia waxa ay haysataa ma jirtee inaga ka awood badan oo ka qiimo badan oo ka sharaf badan walaalayaal aynu gacanta isqabsano aynu tusno powerka aynu leenahay war Soomaali powerka leedahay Ethiopia hala tuso haddaynu tusno oo maanta tin laga dhiidiyo oo nimankaas madaxda ah ninka dhiibay la tuso wixii aynu ka qabno iyo IDheena iyo xaalkeenu soo beri baan mid kale la dhiibaynin laakiin hadday tan ku nabad garaan believe me tan hadday ku nabad galaan farmaajo iyo khayre ninka maskiinka walaalkooda ay dhiibeen ogo tomorrow shan kala soo socota 10 kala soo socota jidka dheer ee ilaa baydhabo baabuurka xali la qaaday xali saqdi dhexe ninka baabuurka ku qaadeen way baydhabo diyaarad ka saareen jidka dheer ba hadaba Soomaali wada haysta jeel Soomaali baan soo bixi doona maanta iga soo guriya arintaas marka intuu jeel Soomaali soo bixin Soomaaliya meesha in ka kacno wax meesha yaala ma jiro inay Ethiopian u rayo xunxun waxba ahayn oo wiyana halka jooga ee inteena qabtaan anaga jeel noo sameeyaan waliba magacyadeen inoogu sameeyaan oo inagu abuse gareeyaan anaga isu kaaya diraan oo yiraahdaan warkan waa hebele saa u baabi'i waxa jeelka isku wada baabi'inay isku dilay waa seema Soomaali ku abuse gareynay ka dilay waa Soomaali ahmar this is no difference marka dadkeena fiyobo meesha aynu ka kacno waa intaas ayga tala ah maanta aan waan ka xumahay arintan meesha ka dhacday xoog badan baa la galiyay bariyo badan baa la galay dhinac walba laga soo maray nimankaas waana ka soo istaageen oo weydiideen laakiin ay guarantee ninka waa la dhiibay at sabab saaka ka degay in the morning meel ayagu ay yaqaanaan u beenay geysteen ilaahay u soo bariya waan in bariyaa ninkan ilaahay u soo bariya ilaahay inuu gacantooda ka fududeeyo ka qabto ilaahay dilkooda iyo bahdilkooda iyo dhibaatada ay u rabaan inay ku sameeyaan wiilka miskiinka ee islaamka ah u soo duceeyeen ilaahay ka furfuro intaas aan idinka tagayaa I'm really sad maanta marka walaalayaalo Facebook and also I love you guys the way know you future-ka ilaahay wax damo ka soo galay ma tuso markastoon wax dhibaato inta leeg soo galo un baan ugu soo galaa laakiin wax damo Facebook live u soo galo ilaahay ugu keen rabbiyo marka waa idin bariyaa walaalayaal wiilka u soo duceeya Soomaali u soo duceeya khayr badan baa idinka tagay I love you all bye guys